halkani waa BBC oo idin kala hadlayso muujadaha gaagaaban ee FM-da magaalooyinka qaar iyo barta internetka ee bbcsomali.com. kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal meel kastoo naga dhageysanaysaan waa maalin isniin ah 17 December saacadu waa 2 duhurnimo oo gow ah qodobada aad idaacada ku maqli doontaan waxaa kamid ah xaguu maraya diyaar garowga doorashada madaxtinimada ee Koonfur Galbeed Soomaaliya. Ethiopia oo bilowday in maanta ciidamadeeda ay ka soo saarto dhulkii 20 sano ee la soo dhaafay ku haysatay Eritrea. waa sidee duruufaha nololeed ee haweenka ku nool magaalada xebeedka Eyl. kalluunka badda bay soo qaataan kalluunkaas shiilan ee ka dhigaan sambuus halkaas oo ay noloshooda ku maareeyaan waxay ku masruufaan caruurtooda iyo qoysaskooda inta badan haween baa qoysaska mas'uulka ah iyo ilmayaasha. qodobada iyo kuwa kale ayaad ku maqli doontaan barnaamijkan oo soo saaray Maxamed Cabdiraxmaan anigoo Xasan Cali Geel ayaana halkan idin kala socodsiin doona hadduu eebaha awood leh idmo balse marka hore aan ku bilowno warkii caalamka waxaa diyaar u ah Cabdiraxmaan Xaaji Cabdu. mahadsanid Xasan Geele. maxkamadda sare ee dalka India ayaa xukun dil ah ku riday siyaasi caan ah oo lagu eedeeyay inuu laayay dad badan oo ka tirsan Singa oo hogaaminayay howlgal lagu dilay in ka badan 3,000 oo ka tirsan bulshadaasi sanadka markuu 1980kii rabshadaha dalkaasi lagu dilay ayaa waxaa ka dhalatay nin Singa ka tirsan oo ka mid ah ilaalada ra'iisul wasaare Indira Gandhi markii uu dilay wasiirka maaliyadda ee India Arun Jaitley ayaa sheegay dadkii ay waxyeelada ka soo gaartay dhacdadii 1980kii ugu dambeyntii in ay maanta cadaalad heleen. Sajjan Kumar was a symbol of the anti-Sikh riots in 1986. Sajjan Kumar wuxuu hogaamiye u ahaa rabshadihii looga soo horjeeday Singa ee dhacay 1984. shacab badan oo dhacdadaasi goobjoog u ahaa ayaana ku marqaati furay ninkaasi. maanta ayayna ugu dambeyntii garsoorka ku guuleysteen inay maxkamadda sare ee Delhi waxay ka jashadii ka imaanaysay qoyska Gandhi iyo aqalka Congress-ka ay ahaa in kiiska dhacay 1984 iyo qoysaskii waxyeelada ay ka soo gaartayba ay cadaalad helin. And ensured that no justice is done to the victims of 1984. dalka Malaysia ayaa gudbiyay dacwad ka dhana shaqaale hore uga tirsanaa bangi maalgashiga oo Mareykanka laga leeyahay. shakhsiyaadka dacwadda lagu soo oogay ayaa dacwadooda la xidhiidha in ay gacan ka geysteen in bangiga laga xado 2.7 bilyan oo dollar. lacagtaasi la xadayna oo lahaa sanduuqa maalgashiga ee ay dowladda Malaysia leedahay. lacagtaasi la lunsaday ayaa hore dacwad looga soo oogay ra'iisul wasaarihii hore Malaysia Rajiv Razak iyadoo la xidhiidhiyay inuu isagu ka dambeeyay. Ethiopia ayaa sheegtay ciidamadeeda ku sugnaa xadka Eritrea ay la wadaagto inay maanta bilaabeen in ay ka baxaan xerooyinkii ay 20 sano ku dhawaad ku sugnaayeen. labada dal oo heshiis nabadeed gaaray 5 bilood ka hor wuxuu dagaal xoogan ay ku dhinteen 10,000 oo qof ku dhex maray 1998 ilaa 2000. wasaaradda gaashaandhigga Ethiopia waxay sheegtay talaabada Ethiopia ay ciidamadeeda maanta kaga soo qaadayso ay bilowdeen ciidan maanta kaga soo qaaday qayb ka tahay fulinta heshiiska nabadeed ay laayeen ugu dambeyn. hay-adda Amnesty International ee u dooda xuquuqda aadanaha ayaa Nigeria ku eedeysay inuu horiso colaadda u dhaxaysa beeraleyda iyo xoolo dhaqatada dalkaasi. dowladuna ay ku guuldareysatay inay sharciga hor keento dadka dhibaatooyinkaas ka dambeeya. Amnesty waxay sheegtay 3 sano ee la soo dhaafay ugu yaraan 3,500 oo qof in ay rabshadahaasi ku dhinteen. rabshadahan iyo ka dhasha dhulka iyo daaqa oo la isku qabto. militariga dalka Nigeria waxay aad ku eedeysay inay shacabka dagaalamay ay kala dhex gelin iyagoo xerooyin ku leh deegaanada dagaalada ka socdaan. ciidamada Nigeria warbixinta Amnesty International ay soo saartay waxay ku tilmaameen mid ay ku doonayso inay Nigeria xasilooni darro ka abuuranto. warkii dhacdeen duhurnimo wanaagta Geele. aad ayuu mahadsan yahay Cabdiraxmaan Xaaji Cabdu oo nala socodsiinay warkii caalamka dhageystayaal u diyaar garooba qaybaha kale barnaamijka. aan ku bilownay magaalada Muqdisho ayraad magaalada Baydhabo waxaa la soo gabagabeeyay khudbadihii ay musharaxiinta madaxtinimada ee Koonfur Galbeed ay ka horjeedinayeen xildhibaanada golaha baarlamaanka ee Koonfur Galbeed. doorashada ayaa Arbacada ay ka dhacdo waxaana tartanka aan ka qayb galaynin oo aan ku jirin Sheekh Mukhtaar Roobo oo Mansuur oo isaga ku xiran magaalada Muqdisho. dhanka kale waxaa jira xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo wali ku baaqaya in doorashadaasi dib loo dhigo. wararka Baydhabo waxaa magaalada Muqdisho kala socday wariyaha BBC ee magaalada Muqdisho Ibrahim Maxamed Aadan oo haatan qadka si toos ah ugu jira. Ibrahim
xasan geele murashaxiinta maanta hadlay waxay kala ahaayeen ambassador sayid axmed sheekh taahir oo mar ahaan jiray danjiraha soomaaliya ee dalka uganda iyo cabdicasiis xasan maxamed laftagreen oo xildhibaan federaalka ka tirsan iyo wasiiraba kasoo noqday dowladihii kala duwanaa ee dalka soo maray isagoo haddana dowladda ra-iisul wasaare xasan cali khayre wasiirka ahaa inkastoo iska casiray markii uu inuu u tartami doono xilkan labada murashax waxa ay xildhibaanada baarlamaanka koonfur galbeed ka horjeediyeen barnaamijyadooda siyaasadeed ay doonayaan in lagu doorto si ay u hogaamiyaan 4 sano ee soo socota maamulka koonfur galbeed maanta si ka duwan shalay ayaa amniga hoolka baarlamaanka loo adkeeyey iyadoo ciidamo badan lasoo dhoobay shalay 3 murashax ayaa hadashay aadan maxamed nuur saransoor xuseen cusmaan xuseen iyo ibraahim macalim nunow 5 murashax ayay guddiga doorashadu sheegeen in maalinta arbacada ah ay u tartami doonaan xilka madaxweynaha waxaa ka maqan qofkii 6aad oo ah sheekh mukhtaar robo cali abu mansuur oo guddiga doorashadu markii hore shahaadada siiyey isla markaana la maleynayay inuu tartanka ka qayb gali doono khamiista ayaa laga soo xiray magaalada baydhabo wuxuu hadda ku xiran yahay magaalada muqdisho dabcan sida muuqata doorashada kama qayb geli doono berrito waxaa la samayn doonaa in la diyaariyo holkii doorashadu ka dhici lahayd isla markaana xildhibaanada loo sheegay qaabka codaynta u dhici doonto maalinta xigtana waxaa la ogaan doonaa cidda madaxweyne ka noqon doonta koonfur galbeed oo bedeli doonta madaxweynihii iscasilay shariif xasan sheekh aadan amniga magaalada baydhabo maanta uu wanaagsanaa noloshu caadi bay kusoo laabatay iskuuladii dib baa loo furay ganacsigii sidaas oo kale laakiin weli boqolaal ka mid a dadkii mudaharaadayay dhowrkii maalmood ee ugu dambeeyey ayaa xabsiyada weli ku jira waan gartay ibrahim dhinaca kale magaalada muqdisho waxaa shir jirayd ku qabtay xildhibaano kasoo jeeda koonfur galbeed marka maxay ku sheegeen shirkaasi jirayd waxay soo saareen baaq ka kooban 6 qodob qodobka koowaad waxay leeyihiin waa in la ilaaliyaa sar ku dhaqankiisa isla markaana loo hoggaansamaa lana aqbalaa dalabkii gudoomiyaha golaha shacabka golaha odayaasha xubnaha aqalka sare ee kasoo jeeda koonfur galbeed dalabkaas oo ahaa in dib loo dhigo doorashada madaxweynaha koonfur galbeed si loo ilaaliyo bay yiraahdeen maslaxadda caamka ah danaha qaranka midnimada iyo isu urfiyoobaanta shacabka Soomaaliyeed isla markaana loo helo jawi degan oo saamixi kara doorasho xor iyo xalaal waxay kaloo ku baaqeen in laga wada shaqeeyo sidii lagu suurtagelin lahaa in heshiis siyaasadeed oo dhammaystiran oo keeni karta xalka gaaridda doorasho ay ka wada qayb galaan dhammaan murashaxiintii shahaadooyinka qaatay waxay kaloo sheegeen in ay tahay in la soo daayo dadka sida sharci darrada ah loogu xiray sida ay warka u dhigeen iyagoo gudanaya xuquuqdooda dastuuriga ah ee uu fasaxayo dastuurka jamhuuriyadda federaalka waxaan ugu baaqaynaa bay yiraahdeen shacabka koonfur galbeed inay ka shaqeeyaan nabadda iyo xasiloonida iyagoo ku dhaqmaya qodobka 2aad ee dastuurka jamhuuriyadda oo u fasaxaya inay ka qayb gali karaan abaabulan karaan banaanbaxyo nabadeed oo ay ku cabirayaan dareenkooda iyagoo aan cidna uga baahnayn inay ogolaansho ka helaan shacabku waxaan xasuusinaynaa bay yiraahdeen xikmadda oranaysa nin libax nin ganay iyo nin galaday labada og waxa kaloo ay xildhibaanadaasi baaqooda ku sheegeen baaq ay u direen madaxda dowladda federaalka oo ay ku sheegeen in la joojiyo waxa ay ugu yeereen cadaadiska iyo cagajugleynta lagu hayo guddiga doorashada madaxda kumeel gaarka ah maamulka iyo xildhibaanada baarlamaanka koonfur galbeed taasoo ay yiraahdeen waxay xadgudub ku tahay xorriyadda dastuurka ah baaqani wuxuu u dambeeyey baaqiyo isxigay oo ku aadana in doorashada koonfur galbeed dib loo dhigo laakiin guddiga doorashada iyo maamulka kumeel gaarka ah ee koonfur galbeed waxay ku adkaysanayaan in arbacada ay doorashada dhici doonto xasan geele aad ayuu u mahadsan yahay wariyaha BBC da Ibrahim Maxamed Aadan ayuu kaasi ahaa oo qadka si toos ah tan ugu jiray wahagaag dhanka iyo dalka Ethiopia-na ciidamada Ethiopia ayaa bilaabay in ay isaga baxaan soodinta ay muddada 20 sano ah isku haysteen dalka Eritrea si loo dhaqan geliyo heshiiskii nabadeed ee bishii July ee sanadkan ay wada saxiixdeen labadaasi wadan wasaaradda gaashaandhigga Ethiopia ayaa sheegaysa in tallaabadaasi ay qayb ka tahay heshiiskii ay labadani wadan kala saxiixdeen ee lagu soo afjarayay colaadda 20 sano socotay ay ku dhinteen kumanaanka qof ka bixitaanka ciidamada Ethiopia ee xuduudaasi Eritrea waxaa magaalada Jigjiga kala socday wariyaha BBC da Cabdinaasir Sheekh Maxamed Xikam oo goordhaweyd aan ka waraystay xasan shan bilood kadib labada wadan markay siiyeen waa Ethiopia iyo Eritrea ayaa maanta wasaaradda gaashaandhiggu waxay shaacisay in ciidamadii militariga ee halka ka joogi jiray muddo 20 sano ka hor ahana ay dagaal badan ay kala dhexmareen labada wadan ay maanta ka soo saarto
taas oo in badan uu dalbanaya waddanka Eritrea sababtuna waxay aaminsanayeen inay waddanka leeyihiin dabcan qaramada midoobay ayaaba xukmisay in ay iyagu leeyihiin marka maanta ayay wasaaradda gaashaandhiggu shaacisay inay kala soo baxayaan ciidamadii halkaas nabada waddan ayaa intii u dhaxaysay 1998 ilaa 2000 uu dagaal badan halka oo aad u kharaara oo kumaankum ruux ku dhimatay sida la aaminsan yahay xadka labada waddan gaar ahaan saddex geesoodka Baadhame Shareero iyo Salaambasa maanta ayayna ciidamadii halka ku dagaalamayay ka soo bixi doonto xasan lama ogaa waddanka Eritrea in ciidamadiisii dib u dukin doono iyo inuu soo dukin doono maadaama isoo waddankii looga kacay oo isagu meesha uu leeyahay sida aad sheegtay wadamadani Eritrea iyo Ethiopia muddo ay soo dagaalamayeen marka ciidamadan haatan laga qaadayo xuduudda ee dalka Ethiopia ay kala baxayso maxay uga dhigan tahay markay dadaaladii nabadda ee labadan wadan u dhaxeeyay xasan waxay uga dhigan tahay labada wadan heshiis ay ka dhaxmaray ra'iisul wasaaraha waddankan Ethiopia Eritrea ayuu tagay ugu yaraan 3 jeerna madaxweynaha Eritrea wuxuu ku soo noqday maaragtay waddankan Ethiopia leer qabowba dadka kala dhaxmartay laakiin maadaama ciidankii wali meesha fadhiyo boobtii wali way nooshahay ciidankii kumaankumka iska dilay ayaa wali soo fadhiyay oo geedii iyo buurihii iyo dhufayskii dhex fadhiyay marka taas waxay ka dhignayd inay labada wadan heshiiyeen laakiin boobtii baa wali sii muuqatay labada ciidan mar haddii la kala fogeeyo oo waliba ciidanka militariga waddankan Ethiopia laga soo qaado oo taas waxay uga dhigan tahay in meeshii la isku leynayay ee loo xukmiyay waddanka Eritrea maanta ay si dhab ah u mulkinayso sida kalena colaadii baa si rasmi ah meesha u baabaayso oo mar haddii ciidamada militariga la kala qaaday isu socodkii labada shacab iyo kalsoonidii heshiisyadan ayaa iyaduna sii xoogaysanayay waxay isku haysteen labadan wadan Ethiopia iyo Eritrea waxay ahayd dhul labada dhinac u dhaxeeyo haatan Ethiopia ciidamadeedii ayay kala baxday dhulkii asaga ahaa oo heshiiskii kadib marka maxaa xigi kara waxaa xigi doona calaaqaadka labada wadan inuu si toos ah u soo noqdo goobahan isku haystay dad baa ku noolaa oo tuulooyin ay u haayeen oo beeraad u haayeen dagaalkii markuu qarxayna dadkii halkaa deganaa way ku kala qaxeen oo way ku kala tageen maantana ay u tahay maalin u wanaagsan dadka inta badan labada wadan godoonka ku kala ahaa ee weliba laga yaabay inayna isla hadli jirin waxaa inta badan dhici jirtay xasan markii labada ruux rabaan isla hadlaan waa qofka jooga Eritrea iyo qofka jooga Ethiopia waxay tagi jireen wadan saddexaad taasay isku hadli jireen laakiin maanta iyagii ayaa isu muuqda oo is arkaya oo ciidamadii militariga ee noocaana waaba kan la kala qaaday marka waxaa xigi doonta in dadka halkaa deganaa uu si rasmi ugu soo noqdo inay labada shacab ganacsigii iyo isu socodkiiba uu si toos u hagaago waxaa xigi doonaa inaa meesha ay noqon doonto laba magadashin oo Eritrea iyo Ethiopia ay kala leeyihiin oo isku fududeynaya meeshii markii hore oo gumaca iyo rasaasta iyo qoriga afkiisu ka soo jeeday maanta ay maaragtay immigrationku ugu fududeynayo labada wadan dadka shacabka midba midka kala gelaya oo hadda saad ogtahay xasan dowlad deegaanka Tigreega iyo waddanka Eritrea dadka degan waa walaalo oo waa isku mid oo waa dad sida Soomaalida oo kale isku wada ehel iyo qaraabi iyo wada qoysa marka dadkii noocaas ahaa oo 20 sano kala go'naa ayaa hal mar hadda la filayaa inay maaragtay isu yimaadaan oo isu socdaan oo wax wada cunaan kaasi wuxuu ahaa wariyaha BBC da magaalada Jigjiga Cabdinaasir Sheekh Maxamed Xikam oo goor sii horeysay qadka igu waramayay dhageystayaal ayaa ra'yigooda ka soo dhiibtay qodobkan waxaa ka mid ah Sadiq Aadan Xidig waxa uu jooga Cabuud waxa uu yiri waxaan soo dhaweynayaa ka soo bixitaanka Ethiopia ee xadka waxayna u muuqataa uu yiri inay ka dhabaysay ballanqaadkeedii Cabdirasaaq oo jooga Goday isagu waxa uu leeyahay nin waliba meesha cunta ayuu xogtaa anagu haddii aan nahay Soomaalida waxa inoo roon in xasuuq ay laga dayso dhageystayaasha kale aad ayay u mahadsan halkan nala socotaan waa laanta Soomaaliga BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba qaramada midoobay ayaa ku baaqaysaa in lala soo gaaro 350 milyan oo dollar oo ay sheegtay inay aad ugu baahan yihiin dadyoga reer Falastiin oo ay sheegtay inay haysato xaalad bani'aadanimo oo aad u liidata warbixin ay qaramada midoobay soo saartay ayaa lagu sheegay in dad aad u yar ay gargaar u fidin karto sanadka soo socda xilli baahiduna ay sii badanayso waxaana sababta lagu sheegay in dhaqaalihii Falastiiniinta loogu yabo jiray oo aad hoos ugu dhacay arrintan ayaa ku soo beegmaysa xilli Mareykanka uu dhimay in kharashaadkii uu siin jiray hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Falastiiniinta warka arrintaasi waxaa inoo haya wariyaha BBC da Axmed Cabdi Nuur warbixintani waxay tilmaamaysaa xaalad sii xumaanaysa oo ka jirta dhulka Falastiiniyiinta magaalada Qasa adeegyada caafimaadka waxaa ka tambadiyay dhaawaca iyo dhimashada ka dhashay mudaharaadyada ka dhacaya
dayrka ku teedsan Israa'iil. laakiin xafiiska howlaha bini'aadanimada ee qaramada midoobay waxa uu sheegay in sanadka soo socda ay gaari doonaan oo keliya 1,400,000 oo qof oo halkaas ku nool, taas oo nus milyuun ka yar intii ay sanadkan gaareen. madaxa qaramada midoobay dhulkaas u jooga waxa uu tilmaamay lacag yaraantii ugu bacnayd ee taariikhda soo marta iyo wax uu ugu yeeray weeraro lagu hayo si sharci darro looga dhigo gargaarka aadaminimada. sanadkan iyadoo ay korortay xiisada kala dhaxaysa hogaamiyaasha Falastiiniyiinta, maamulka Mareykanku waxay jareen malaayiin dollar oo ahaa gargaar horumarineed iyo mid la siin jiray hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga Falastiiniyiinta. codsi degdeg ah oo la jeediyey waxaa lagu helay lacag lagu daboolo inta badan baahidii hay'adda qaramada midoobay ee qaxootiga Falastiiniyiinta. maantana dalka UK waxa uu sheegay inuu bixin doono lacago kale oo lagu caawiyo dad ka badan 60,000 oo ah qaxooti ku nool marinka Gaza, kuwaas oo halis ugu jira inay gaajo u dhintaan. aad ayuu mahadsan yahay Axmed Cabdinuur. haweenka Soomaaliyeed ee ku nool magaalo xebeedka Eyl ayaa la sheegayaa inay wajahayaan xaalad nololeed oo aad u adag, isla markaana aysan haysan daryeel caafimaad iyo waxbarasho. dhibaatooyinkaas waxaa usii dheer wadooyinka magaaladaasi taga oo ah kuwa aan wanaagsanayn oo xitaa bukaanka caafimaad ku aadaya magaalooyinka kale ay suurtagal tahay inay wadada kusii rafaadaan. haddaba sidee haweenka magaaladaasi ula tacaalaan dhibaatooyinkaasi? su-aashaasi iyo kuwo kale ayaanu weydiinay Caasha Cabdikariim Xirsi oo ka mid ah hoggaanka haweenka magaalada Eyl. waxayna u warantay wariyaha BBC-da Bashkar Jug soo dhacay oo dhawaan halkaasi safar shaqo ku tagay. inta badan haweenku waa dad soo qaxay, dadkii abaaraha saameystay, dadkii dagaaladii isugu saameeyeen, dadkii burcadda saameysay. kalluunka badda bay soo qaataan, kalluunkaas shiilaan ka dhigaan sambuus, qaybo kala duwan ka dhigaan, halkaas oo ay noloshooda ku maareeyaan. waxay ku masruufaan caruurtooda iyo qoysaskooda. inta badan haween baa qoysaska mas'uulka ah iyo ilmayaasha. kasabko kheyraadka badda oo ay ganacsadaan. haweenka ku nool magaalada Eyl maxaa kale oo ay ka ganacsadaan, maxaa kale oo ku mashquulsan yihiin? dhinaca waxbarashada waa jirta. Eyl waad ogtahay waa laba xaafadood, daawad iyo Bidey. marka daawad waxay leedahay goob waxbarasho oo maxay tahay santara. Bidey laakiin weli looma sameyn. haween badan baa jira oo maxay tahay waxbarashadii seegtay, kuwa ka waaweynaaday iyo kuwa maxay tahay waxbarashadii dhaqaale u waayay intay yiraayeen. dadkaas marka inta badan waxaan raadinaa meel u kareynaa guryahaas wax lagu barbaraa. laakiin haddii aysan hoy joogta ama santar weyn lahayn, waxa weeyaan waxbarashadu waxay ku noqonaysaa waxbarasho googo'aysa. haweenka marka dowladan miyay yihiin kuwa iskuulaha hoose dhexe markay bogaan kullaha sare ay karaan iyo jaamacada? haweenka waxay weeyeen waa dhowr isku jirta. haween wax bartay waa jiraan, haween maxay tahay duruufaha ay u diideen oo aan waxba barana waa jiraan, sida haweenka soo qaxay, sida haweenka inta abaaraha iyo waxa saameeyeen oo la yaryar iyo waxbarashada dadka weyn ah la gashaa. inkastoo aysan baday lahayn meel santar ah oo haweenka wax lagu baro, oo arrintaasina ay ku tahay caqabad haysata. kolleytaba haweenka meel ay joogaan waxay u baahan yihiin isbitaal ay ku umulaan ilmaha maartay ay markay ka xanuunsan ay geystaan. marka xaaladda caafimaadka ka waran magaalada? haweenka halkan degan hadda xagga caafimaadka aad bay u fiican tahay. waxay helaan MCH ka dhisan, MCH-dii waa shaqeeyaan. awalkii hore jidku waa xumaa, hadda xoogay jid carruur fiican baa jira. haweenkii weli waxbaa dhiman oo dhiig ku shubka iyo markii dhiig la'aan dhacdo uguma shubi karo. qalitaan markay noqoto qalid ma jirto, laakiin wixii kale oo caawinta ay gargaarka degdega xoogay qalitaan iyo marka caafimaad kale loo baahdo isbitaalka ugu dhow magaaladan oo marka dadka ay u kacaan qaasatan dumarka. garowe u kacaan, garowe loogu dhow, garowe la geeyaa. garowe marka imisa muddo loo soconay? 285 kilomitir. adigu 4 saacadoodna waa socdaan hadda, laakiin xilliga hore 8 saac 7 saac la socon. gawaarida la raacana marka oo la heli karo dadka bukaanka loo qaadi karo gawaari noocee? magaalada waxay leedahay hal ambulance, ayna way weyn tahay, waa 42 tuulo. baahida ma dabooli karto. qofka jirana waxa fiican in baabuur khaas oo caafimaad in lagu qaado. marka halkaas waxa ka jira caqabad weyn xagga gaadiidka. taasi waxay ahayd Caasha Cabdikariim Xirsi oo ka mid ah hoggaanka haweenka magaalada Eyl. waxay u warramaysay wariyaha BBC-da Bashkar Jug soo dhacay. halkan nala socotaan waa laanta Soomaaliga ee BBC-da.
وهاجاج إن وركي عيارها هديان إجنانا تبرها كوحدة ليفربول كلوب أيها شيء إن كوحدي سأي موجسي تيوانا أكسن كدب مركي أي حالي سدح يحل وقبضي سي مانشستر يونايتد أو سنة بدن أنا يوقع كان جرون كأنفيلد ليفربول أيها هذا هو وهي سهريال كإنجليزكا وحنا هل يبيع أو كليا أي كسر رئيسا مانشستر سيتي دنكا كله وهذا صعايا إن مناسبة لقصة مين يسكوات كوحها اللي طبعا كأه سوق صهري تشامبيونز ليج إنجليزكا وحكومة تليا أفرت كوحات كله ليفربول مانشستر سيتي مانشستر يونايتد يو توتنهام إن تشيلسي يو أرسنال لا إن أو يجو كم ده كوحها كسب بحي يوروبا ليج أيا لوغان دونا كوحها أي سكوات دونان وهاجاج هاتنا دقيستيال بافنتي baafinta waxaa si wada jira stuudiyaha BBC-da ee magaalada Nairobi idinkaga soo tabinaya anigoo ah Caasha Saciid Xasan iyo Samiira Cabdullaahi Jaamac mahadsanid Caasha baafinta ugu horeysana maanta waxa ay naga soo gaartay Ardo Muuse Bilaal oo joogta Burco waxa ay baafinaysaa Shukri Cali Saciid waxa ugu dambeysay iyadoo ku sugan dalka Yemen sanadii 2008 hadii ay maqlayso Shukri Cali Saciid garanaysa fadlan warkeeda hal la gaarsiiyo Ardo Muuse Bilaal iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Burco بشير أو حسن مجن أو جوجا بورم وح أو بافنيا أيان لا بشير أو حسن وحقور دمبسي سوق كسبان يمن لا بدي يكون يتطبيق تبنكي هذا بهدي وانا مقليا أيان لا بشير أما بيجر تعد قرن إذا فضنا وركي سهل جارسيه بشير أو حسن أيضا وحورا لوسي مرينكر حفظ كبافن تبش عس أي كل هذا هاي بورم عمر عبد حسين أو جوجا زيلع وحو بافنيا عبد الرحمن عبد حسين وحول دمبيسي سوق كسوغان دالك يمن سنتي 2008 hadaba hadii uu maqlay Cabdiraxmaan Cabdi Xuseen ama way jirtay cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo Umar Cabdi Xuseen iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Zeyla عرب عبد الله تكالي أو جوجه بورم وحاو بافنيا عبد الله عرب وحاو بوردن بيسي سوى كسوغن يمن لبدي يكون يتطبيط بنكي هذا بهدي ونا مقليا عبد الله عرب أما بيجر تعيد قراني سفضل مركي سهل جارسية عرب عبد الله أيضا وحي ورا لوسي مارين كرو حفظ كبافن تبش عسئي كل هذا هاي بورم أحمد علي سلطان أو جوجة زيلع وحاو بافنيا فاطمة علي سلطان وحاور دنبيسي يدو كس كونفور أفريكا سندي لبدو كني سغالكي هذا بهدي أين مقليسة فاطمة علي سلطان أما بقى يجر تعد كراني سفر لمور كذا لكارسيو أحمد علي سلطان يدو وحي ورا لوسي مرين كرو حفيز كبافن تبش عسئي كل هذا هاي زيلع سعيد حريد روبل أو جوجة بورم وحاو بافنيا أبوكر سعيد حريد وحاور دنبيسي إساقو كسوغن يمن لبدو يكون إيسو بنكي هذا بهدي ونا مخليا أبو كر سعيد أما بيجر تعد قرانيسة فضل مركيسة هلا جارسيو سعيد حريد أيضا وحوارا لوسي مارين كرو حفظ كبافنتا بش عسي كل هذا هاي بورما عبد الرحمن علي محمد أو جوجة زيلع وحاو بافنيا حبيبة عمر سعيد وحاور دنبيسي يدو قسوغان دالك يمن سندي لبدو كني تبنكي هذا بهدي أين مقليسة حبيبة عمر سعيد أما بيجر تعد قرانيسة فضل مركيسة هلا جارسيو عبد الرحمن علي محمد إيضا وحوارا لوسي مارين كرو حفظ كبافنتا بش عسي كل هذا هاي زيلع موسى سعيد عثمان oo jooga Boorama waxa uu baafinayaa qadar Muuse Saciid waxa uu wardambeysay isagoo ku sugan Liibiya 2016 hadaba hadii uu maqlayo qadar Muuse ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo Muuse Saciid ayadoo wax wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Maxamed Faarax Fataax oo jooga Zeylac waxa uu baafinayaa Nimco Faarax Fataax waxa uu wardambeysay iyadoo ku sugan dalka Yemen sanadii 2014 hadaba hadii ay maqlayso Nimco Faarax Fataax ama ay jirtay cid garanaysa fadlan warkeeda hal la gaarsiiyo Maxamed Faarax Fataax iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Zeyla مريان عبد الداهر oo joogta Boorama waxay baafinaysaa Muuse Axmed Daahir waxa uu wardambeysay isagoo ku sugan Itoobiya 2012 hadaba hadii uu maqlayo Muuse Axmed Daahir ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo Maryan Cabdi Daahir iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Boorama تمرو أوكلا جامع أو جوبتا بربرة وحي بافنيسا عبد الكريم أحمد حرسي وحاول دنبيسي سوق كسوغان دالك جرمال كسندي لبدو كون يلحي تبنكي هذا بهدي ونم أحمد حرسي أما ويجر تعيد قرانيسا فالله مركيسا لقارسيو تمرو أوكلا جامع إيضو وحي ورا لوسي مرين كرو حفيز كبافنت بشا عسئي كل هاي بربرة أما بتليفونك نمبركيسو يلا بشان لبلح 6 شن 6 لو جامع دينا أو جوكتو بورم waxay baafinaysaa
maxamuud jaamac waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan liibiya 2012 haddaba haddii uuna maqlayo maxamuud jaamac amaba jirta cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo luul jaamac iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay boorama. hindiyo nuur cumar oo joogta burco waxa ay baafinaysaa ruqyo nuur cumar waxaa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan dalkani Kenya sanadii 2008 haddaba haddii ayna maqlayso ruqyo nuur cumar amaba ay jirta cid garanaysa fadlan warkeeda hala gaarsiiyo hindiyo nuur cumar iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay burco. jibriil daahir muumin waxa uu baafinayaa mahadi daahir muumin waxa uu wardambeysay isagoo ku sugan liibiya 2010 haddaba haddii uuna maqlayo mahadi daahir amaba ay jirta cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo jibriil daahir iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay boorama. jamaad yuusuf cumar oo joogta burco waxa ay baafinaysaa hodan yuusuf cumar waxa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan dalka Yemen sanadii 2011 haddaba haddii ayna maqlayso hodan yuusuf cumar amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda la gaarsiiyo jamaad yuusuf cumar iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay burco. qadra ibraahim cali oo joogta boorama waxay baafinaysaa nuuro ibraahim cali waxa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan dalka Turkiga 2009 haddaba haddii ayna maqlayso nuuro ibraahim cali ama ay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda hala gaarsiiyo qadra ibraahim cali iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay boorama. cabdulaahi aadan cabdi waxa uu baafinayaa maxamed aadan cabdi waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan Ethiopia sanadii 2010 haddaba haddii uuna maqlayo maxamed aadan cabdulaahi amaba ay jirta cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo cabdulaahi aadan cabdi iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay zeylac. ayaan daahir ducaale oo joogta boorama waxay baafinaysaa faadumo daahir ducaale waxaa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan dalka Sacuudiga 2008 haddaba haddii ayna maqlayso faadumo daahir ducaale amaba ay jirta cid garanaysa fadlan warkeeda hala gaarsiiyo ayaan daahir iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay boorama. axmed xuseen cige oo jooga zeylac waxa uu baafinayaa xuseen cige bahdoon waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan magaalada Sanca ee dalka Yemen sanadii 2001 haddaba haddii uuna maqlayo xuseen cige bahdoon amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo axmed xuseen cige iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay zeylac. xasan cabdiqani xamuud oo jooga badhan waxa uu baafinayaa xuseen cabdiqani xamuud waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan liibiya haddaba haddii uuna maqlayo xuseen amaba ay jirta cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo xasan cabdiqani iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay badhan. bade xuseen qaalib oo jooga zeylac waxa uu baafinayaa Eliyaas Cabdiraxmaan Yuusuf waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan dalka Yemen sanadii 2014 haddaba haddii uuna maqlay Eliyaas Cabdiraxmaan Yuusuf amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo bade xuseen qaalib iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay zeylac. ibraahim saciid aadan oo jooga Laas Qoray waxa uu baafinayaa maxamed saciid aadan waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan dalka Yemen 2014 haddaba haddii uuna maqlayo maxamed saciid amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo ibraahim saciid iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Laas Qoray ama telefoonka lambarkiisa uu yahay 229 maxamed xirsi axmed oo jooga zeylac waxa uu baafinayaa aamine xuseen faarax waxa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan dalka Yemen sanadii 2015 haddaba haddii ayna maqlayso faarax amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda hala gaarsiiyo maxamed xirsi axmed iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay zeylac. mustafa guuleed maxamed oo jooga badhan waxa uu baafinayaa mukhtaar guuleed maxamed waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan liibiya haddaba haddii uuna maqlayo mukhtaar guuleed amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo mustafa guuleed iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay badhan. cabdiraxmaan cabdi cilmi oo jooga zeylac waxa uu baafinayaa maryan cabdulaahi cilmi waxa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan dalka Ethiopia sanadii 2015 haddaba haddii ayna maqlayso maryan cabdulaahi cilmi amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda hala gaarsiiyo cabdiraxmaan cabdulaahi cilmi iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay zeylac. saalax maxamuud maxamed oo jooga badhan waxa uu baafinayaa yacquub maxamuud maxamed waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan liibiya haddaba haddii uuna maqlayo yacquub amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo yacquub maxamuud maxamed iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay badhan.
baafinta ugu dambeysa maanta waxay naga soo gaartay maxamed cabdulaahi caraale oo jooga Zeylac. waxa uu baafinayaa cali cabdulaahi caraale waxa uu wardambeysay isagoo ku sugan dalka Yemen sanadii 2015. haddaba haddii uu na maqlayo cali cabdulaahi caraale amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo maxamed cabdulaahi caraale iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Zeylac. baafintina maanta waa naga intaa. aad ayay u mahadsan yihiin Caashe iyo Samiiro oo baafinta halkaasi nagala socodsiinayay. baafintaasi ayaan u dambeysay idaacaddii duhurnimo oo uu soo saare ka ahaa Maxamed Cabdiraxmaan. anigoo Xasan Cali Geela ayaan halkan idinkala socodsiinayay. ciddii ay wararka yaga dhaafeen dabcan waxay dib uga heli kartaa barta internetka ee bbcsomali.com iyo sidoo kale Facebook oo aan soo dhigno qodobadii ugu dambeeyay wararka caalamka iyo kuwa Soomaalida. tan iyo 5 galabnimo hadduu eebaha awoodda la idmo waa BBC doodan leh sidaas iyo nabad gelyo.